daawadayaal waa idin salaamay waa Shubaal Media waxaan halkan idinka soo gudbinayaa shalay horta kalfadhigii toddobaad ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu furay waxa uu ahaa kalfadhi habsami iyo maamuus ku bilaabmay inkastoo uu qolo yari ay arbushaad u geysteen oo nin weyn oo adeer dil leeyahay xildhibaan weyn oo dad soo xusheen firimbiga ciyaalka ciidda lagu ciyaarsiinayay la soo galay hase ahaatee waxaa guul ah in uu ku dhamaado kalfadhigii furitaankiisii si sharaf iyo maamuus iyo nidaam ah dadku mucaarad iyo muxaafidba waa yihiin xukuumadan adduunka mucaarad lahayn maba jirto laakiin wax walba waxaa muhiim ahaa oo aad iyo aad dadku u jecleysteen habsamida iyo nidaamka uu ku bilaabmay kalfadhigu kuna dhammaaday waxaana halkaa ka muuqata in horay loo sii soconayo nabad iyo nolol waxaad moodaa inay soo laabanayso haddii aad saansaanta eegtid qaabka ay dalka u maamushay iyo nidaamkii martay madaxweynaha waataad maqlayseen sanadba sanadka ka dambeeya xagga amniga iyo dhaqaalaha uu kasoo korayay iyo qaabka marka uu shirka kasoo baxay loo soo dhaweeyey oo banaanka dadkii ku sugayay ee aadka ugu hambaliyeeyeen waad arki kartaan ila daawada sidaadba wada daawanayseen waad aragteen kooxdii Bambeyga inay u tuntay heestii ahayd Soomaaliya Soomaali baa leh taasoo aad muddo dadka haddeer Soomaaliyeed in ay ka gudbayaan waxay qaab qabiil iyo nin jecleysi aad moodidna in dalku hore u sii soconayo dowladdan waqtigeedu haddeer iska harsan yahay wax yar hase ahaatee dalka wax badan ka soo qabatay oo aan la inkiri karin madaxweynaha sida uu ka sheegayay kalfadhiga markuu furayay dib u dhiska ciidamada la dagaalanka musuqmaasuqa adkeynta nabadgelyada waa waxyaabaha ugu muhiimsan horta dowladda ay meel marisaa amaba ay qabataa waxa ugu xun musuqmaasuqa heerka uu kala dagaalamay dowladdan uu hogaaminayo Farmaajo ra'iisul wasaarena uu ka yahay khayr aad iyo aad bay musuqmaasuqa u xakameeyeen waxa kale oo ay aad iyadana wax u adag ah dib u dhiska ciidamada dalka waad aragteen ciidan maantay isku dabaridsan oo nidaamsan oo mushahar leh oo lambar leh oo tirsi lambar leh oo baa dalka ka jira shaqaale nidaamsan baa ka jira amniga sida madaxweynaha afkiisa ka sheegay sanadba sanadka ka dambeeyay inuu amniga soo tarayay fiicnaantiisa oo ay wax badan ka qabanayeen wax la inkiri karo marka ma ahan hase ahaatee dadka waxaa jira dhaliilo badan oo ay soo jeedinayaan kuwa mucaaradku inuu ku cabiro dareenkiisa dhaliisha ah mid fikir saliim ah baa loo baahan yahay ma ahan horta in mucaarad baanahay wax iska sheeg ninbaa wuxuu la soo istaagayaa mucaarad baanahay dowladda mushahar ma bixin ama nabadgelyo wax kamay qaban macni waa indha ka tuur wax aad arkaysid oo kuu muuqda inaad indhaha isaga rididna ma ahan waxaan oran karnaa nabad iyo nolol dalka wax badan bay ka qabteen hadday soo noqdaanna wax ka sii fiican bay qabanayaan kuwa iyaga ka dambeeya haddii la bedelan waxaan rajaynaynaa inuu dalka hoggaan iyaga kasii fiican uu qabto ma ahan in uu nagu celiyo kuwii lasoo arkay oo dalka soo maamulay
baa maanta haddana waxay doonayaan in xil loo magacaabo amaba la doorto. muxuu shalay in wax uu qaban waayo miyuu maanta qabanaya? horta waa maya. qof shalay wuxuu qaban waayo maanta ma qabanayo. taas waa daalin, yani in dadka la daaliyo oo dib haddana loo celiyo oo musuqmaasuqi iyo ciidan la kala diro iyo mushaharooyin la lunsado iyo waxaas u socdaan. oo waa micnihi hanti urursi, waa dad hanti urursanaya, dad usoo shaqo tagay dalka weeyaan. siyaasiyiinta maanta joogtaa laguma tilmaami karo nin raba inuu ku jiro inuu dalka u shaqeeyo. haddaad aragtid nin doorasho mar iyo laba intuu soo istaagay, labada marba mar saddexaad haddana wax doonaya, ma aha ninkaasi nin raba inuu dad wax u qabto. waa nin hunguridoon ah, dan buu leeyahay. marka dalka waxaa wanaagsan in lagana wada shaqeeyo wanaagga iyo samafalkiisa iyo laga fogaado xumaanta iyo dadku waad aragtaan qabyaalad meel ay dhigta Soomaali. dad baa weli qabyaaladii u sii jeeda oo dad meelna aan geynin maanta dabada ka wada. waxaan leenahay dalku waa nabad iyo nolol. xisbiga nabad iyo nolol baa laysku ogyahay. waxaa lagu dooranayaana ma ahan Soomaaliya nin jeclays iyo qabiil. war waxa ay qabteen ku doorta, waxa ay dalka u qabteen ku doorta. ma ahan nin inaad taageertid iyo kanaa kula hebela iyo kanaa ku xiga iyo ma ahan. qofka waxa uu qabto ku taageer, raaca xukuumadda nabad iyo nolol. waxaan rajaynaynaa in ilaahay iyadu soo celiyo khayr iyo farmaajo. taasaan isku wada ognahay. fadlan intaan ka bixin channelka subscribe saar, siina share garay adigoo mahadsan.